madarasada Daarul Islaam ee xaafadda Koosaar ee magaalada Burco ayaa soo saartay dufcadii labaad oo ka kooban 20 arday oo bartay culuumta islaamka noocyadiisa kala duwan. Munaasabaddan oo ay ka soo qayb galeen isuduwaha wasaaradda diinta iyo awqaafta ee gobolka Togdheer, kormeere ka tirsan wasaaradda waxbarashada gobolka Togdheer, gudoomiyaha xaafadda Koosaar, culimada xaafaddaasi iyo waalidiin, kuwaasoo dhammaantoodba bogaadiyay ardayda maanta ka aflaxday madarasadaasi. Ugu horreyntii waxaa ka warbixiyay maamulaha Daarul Islaam Sheekh Maxamed Aadan Cilmi. waxaynu halkan isugu nimi waxa weeyaan inaynu karaamayno oo kor u qaadno hadalkii Rabbi subhanahu wa ta'ala oo maaragtay ardaydii xifdiday kitaabka Quraanka Kariimka ah inuu maaragtay halkan ku siino jaa'izad kulli wax la bixiyo waxa uu qaalisan kitaabka Rabbi subhanahu wa ta'ala tafsiira ayaanu ugu talagalnay inaan maanta siino 30 ardayda dhamaystay oo ku tafsiiran Sheekh Dirir tafsiirkiisii inta jisaymi kala tafsiiray maxadka hadaan warbixin kooban ka siiyo waxa la aasaasay 2018 bishii afraad 2018 bishii afraad maantana waxaynu maraynaa 2021 bishii lixaad inta uu aasaasnaa maxadku wuxuu soo saaray laba difcadood tira ahaan haba koobnaadaan sanadkii hore ardayda quraanka ka xifdiday laba arday ahaayeen waana difcadii labaad ee ka soo baxda muddada aynu xaafadda naalay waxa leenahay quraanka barateen ilaahay ha ka dhigo kii dalka iyo dadka iyo diintiina waa ku anfacdaan quraanka barateen wuxuu u baahan yahay ku tadabbur iyo maaragtay mucaamalo dhaba in la yimaado oo lagu dhaqmo quraanka xifdigiisu waa shimbirta la hayo hadaad sii deysana way duuli hadaad haysana wad hayn معهدku qaybta quraanka markuu ka yimaado wuxuu leeyahay qaybtii culumta shariicada afar fasalo hoose iyo waan ugu talagalnay afar sare oo ay ku qaataan dugsi sare iyo 3 sano inay quraanka ardayda xaq hoose kaga soo baxaan oo ardaygii quraanka markuu dhameeyo aan suuqa lagu sii deynay culumtii shariicadana aan waacdeeda oo dhan jamiicul funuun culumi shariica inuu ardaygu maaratay uu ku haqabeelo isagoo xaafadiisi jooga ardayda madarasada Daarul Islaam ayaa iyaguna dhankooda soo bandhigay cilmigii la baray. الناس والحجارة أعدت للكافرين. أيها الإخوة والأخوات والأساتذة والآباء والأمهات والضيوف الكرام استلموا مني تحية الإسلام وتحية أتأتي من عند الله. There are many teachers Ismailis to teach English, Arabic, Maths, Quran and Islamic education. وحبها جميلة وجدها النظيفة رفيقة نظيفة ونعيمها فيها. geesta kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay waalidiin iyo mas'uuliyiintii ka soo qayb gashay munaasabadaasi. leeyahay arday dadaalkiina si wada oo waxbarta si meel u gaadhaan meel wanaagsan u gaadhaan oo tacabkii iyo wixii la ingiliyo waalidiintii ku tacabtay si ay uga gudbaan fayga qabta diilaha waxaanu leenahay ilaahay ha idin barakeeyo ilaahay cilmiga iyo waxa aad barateen baraka ha idin ku rido waxaan barakaysnayna waxba ma taraan kuwii ilaahay uu dadkooda wixii uu soo dhixmariyay dib ugu celiyay u faa'iideeyana noqda gurigaaga dhaqanka uu ka jira waxaad ogaataa ilmahaagu inuu suuqa la tagaayo waxaad ogaataa inuu ubadka dhaxiisa la tagaayo waxaad ogaataa inuu malcaamada la tagaayo waxaad ogaataa labadiina dhaqankooda inuu iskuulka la tagaayo waxaad ogaataa ilmahaagu inuu yahay gudbiyaha koobaad ee wuxuu adiga kaaga arko uu ku gudbinayo annagu ka wasaarad waxbarasho ahaan waxaanu ilaalinaa habka wax dhigista iyo waxbarashadu ay u socoto iyo deegaanka wax lagu dhigayo marka la eego iskuul maxadkan Daarul Islaam muddadii uu jiray iyo meesha uu ku yaalo iyo sidoo uu dadaalka badan u sameeyay aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa ka wasaaradahan anagu wasaaradda diinta iyo awqaafta Maxamed Aadan Cilmi uu dadaalay in wax la wixii wasaaradda iyo xafiiska soo gala inaan ugu roonaano oo halka jaayisa uga dhigno wixii uu nooga baahdo. ugu dambeyntii waxaa halkaasi shahaadooyin iyo abaalmarino kala duwan lagu guddoonsiiyey ardaydii waalidiintii iyo macallimiintii ku soo tabacday ubadkani. Maxamed Saciid Gaxnug, telefishinka Badda Cas, Burco.